dhoola caddeynta. Markii aad qofka aadanaha aad ku qaabishid dhoola caddeyn, markiiba wuxuu kuu arkayaa qof ku faraxsan aragtidiisa, jecelna la kulankiisa, isla markaana aan wax shaki ama culaad ah u qabin. Sidaas darteed waxa uuna isaguna kugu qaabilayaa farxad iyo dhoola caddeyn, asagoo weliba kuu muujinaya inaad u tahay qof wanaagsan uuna jecel yahay la joogiisa. Tani waa tallaabada ugu yar ee xoojisa xiriirka labada qof, wanaajisan isdhexgalka, kasbashada iyo weliba is-aaminaada. maxaa yeelay aadanaha wuu jecel yahay in la qadariyo oo ixtiraam loo muujiyo, qofnimadiisa lagu maamuuso. Sidaas darteed ayuu Allana farayaa inaan wanaajino xitaa kan cadaawada ay naga dhexaysay, si aan uga helno walaalnimo wanaagsan, kalgacayl iyo weliba farxad. Inaad dhoola caddaysid waxay kuu keenaysaa inaad dadka aad rabtid inaad la dhaqanto ay si fudud kuu aqbalaan, waxayna meesha ka saaraysaa inay kuu arkaan qof aan ayaga wax la rabin ama aan salugsanayn habdhaqankooda iyo xaaladda ay ku jiraan. Sida caadada ahna, qof aan adiga furfurnaan kuu muujinin, adiguba weji fiican kuma qaabilaysid, sax? Dhanka kale, haddii aanu nahay dad muslimiin ah, diinteenna ayaa noo sheegaysa inaad weji furfurnaan aad kala hortagtid wejiga walaalkaaga ay sadaqo tahay. Waxaana la ogaaday waxyaalaha xanaaqa qofka uu qaba damin kara si degdeg ah ama yareyn kara waxaa koo ka ah dhoola caddeyn. Adiga isweydii bal hadda, haddii qof adiga aad wax ka tabanaysay oo aad rabtay inaad la dagaasho, haddii markii aad is aragtaan uu kuu dhoola caddeeyo, sidaad noqon lahayd? Dabcan waxaad dareemi lahayd walaalkaaga inuusan waxba kuu qabin. sidaas darteed waxaad ku qasban tahay inaad isdejiso, weliba aad ixtiraamto dhoola caddeyntiisa.